بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida daafida kaga jooganba waxaan leenahay subax wanaagsan, rabadaan wanaagsan. halkaas sooska nooga dalacanaysa oo bartaan kulna YouTube-ka Difaac Official. haddaad hore noola joogtay waxaan leenahay dad kuma santay share-ta ku dhufo uu muuqaal kuu gaadho. haddaad say nagu cusubtay waxaan ku leenahay fadlan subscribe-ta nagu qabo, share-tana ku qabo, wixii fikrada qabtana comment-ga nagula soo wadaag. saaka iyo caalamka ku soo dhawaada ciyaaraha kubadda cagta. ciyaaraha maanta la ciyaari doono horyaalka kubadda cagta Yurub, wax walba oo laga yiri Chelsea oo axadda iyaduna dhici doonto oo ciyaar barta derbiga ka dhici doonto oo hilbaha la isu laabi doono, taasoo Atletico Madrid ay gadoodsanto oo championki laga soo reebay. bal maxaad filaysaa Atletico Madrid macaradii Real Madrid bay kula dul dhici doontaa Barcelona mise haddana waa loo raacin doonaa iyadana? saaka iyo caalamka soo dhawaada saaxiibayaal. Real Madrid iyo Villarreal waxaa foodo istari doona cabaar 8 barka, taasoo ciyaar aad iyo aad u qaali ay dhex mari doonto. Arsenal iyo Chelsea oo iyaguna waxaan ku Premier League ee isleefi doona, taasoo Liverpool ay halka ka soo qoraasanaysa in leedahay talow Chelsea Arsenal madii qaban maantana madaxda Atletico Madrid oo habeen dambe axadda ay Barcelona foodo istari doonaan, taasoo la eegi doono bal ciyaarta halka ka soo bixi doonta. taasoo Real Madrid iyo Barcelona ay isku dhibcan yihiin oo ay Barcelona farqi gool ay ku hayso hoggaanka. Real Madrid miyay ku sii siqotaa hoggaanka mise caawa shuqulayn baa dhici doonta? soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta dunida daafida kaga sugantiinba. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, waxaan leenahay saaxiibayaal channelka kor u qaada, channelku waa channelkeennii, meel kale maaha, waa channelkeennii. waa inagu nagile waaye markaa waxaan ku leeyahay qiyaasag baalka dhac iyo dhac kaga soo siiya. kooxda Arsenal oo ilaa hadda aan fariir ku dhacsan yahay isku dhicitaanka ay Real Madrid Champions League isku dhaceen. Real Madrid Arsenal may dulmar kabaha may la dulmari doontaa mise way xifaatani doontaa, taasoo falay imaarad lagu horeyn doono lugta koobaad, lugta dambana lagu ciyaari doono Santiago Bernabeu, taasoo caalamkii oo dhami ay Real ka qiilinayaan oo leeyihiin war Real waaba mucjiso oo wax kale waxbaa la shaqeey, taasoo aad moodo Real Madrid DNA-geedu inuu Champions League la shaqeynayo. markay halkaas soo gaadhaba dee ay bidhaan baa u baxa, hibaaq baa meel dheer uga baxa, taasoo Arsenal ilaa hadda ilaa xataa الآن isla dhex marayso khoof cabsi, taasoo laacibkeeda hore Thierry Henry uu leeyahay waa in aad ugu tala gashaan inaad Real Madrid ka badin kartaan. haddii aanaydu ku talagelin adihiina la cunay, taasoo uu ku leeyahay sanadkii 2006 aan Real wada ciyaarnay, Real Madrid ay wada ciyaareen Arsenal, taasoo Arsenal ay gool iyo bartaatiqi ku badisay uu Henry waliba ka dhaliyay. wuxuu ku leeyahay sanadkaas ay Real ka adkaydba, maanta waa Borush buu ku leeyahay. sanadkaasoo Zidane joogay oo David Beckham joogay oo Ronaldo joogay oo ciyaartooyadu waaweynaa ay joogeen baanu darnay. macadalla si maanta sheegaysaa inuu Borush la isku soo ururiyay, waa dhiirigelin ayuu ciyaartooyda Arsenal dibta u qaqriyaa Thierry Henry. waxaan ugu aaminsanahay maanta saaka, waxaan aaminsanahay Real Madrid Arsenal hadday darto inaanay ciid championka ka waabinin. maxaad ka filaysaa ciyaarta kale aad iyo aad ku xamaasad iyo u macaan waxa weeyaan Bayern iyo Inter Milan iyo Paris iyo Aston Villa? wala maxaa ciyaar soo socdaanay, maxay ciyaar soo socda? war Manchester United sanadka maanta waa laga yaabay European League waxay ka sameynaysaa waad arkaysaa. war nin ugu fahmi waayo waxaan isleeyahay dhaha New Premier League na si bay ciyaartaa European League new quwadooda dib isku geysaa Man United ma hatta Premier League joogta maaha, kaalinta 15aad bay ku jirtaa haddana dabcan dee aanan khaldanayn. European League say ciyaartayna intii kulan ay ciyaartayba way badis, mar kaliya lagama badin. alla ilaa Brighton 4 jeer bay Brighton gashay, intii kale oo dhan way badis.
Man United oo tele anigu sanadka maanta inkastoo in Champions League dil doonayo in imkan lagu soo daro shan kooxood Ingiriis ay soo galaan waxaan leeyahay ايش قياسك soo dhawaad saaxiib marka soo David ka joogtaan baa waxaan leenahay bal caawiyo Real Madrid 8 barkiyo bal Real baan u raaxaysan doonaa habeen dambana Arsenal iyo Chelsea iyo Manchester muxuu Barcelona iyo Atletico Madrid baan ku raaxaysan doonaa halkaas toos ka nooga dalacanayso barta ku leenahay YouTube kan soo xafiisyada hadday tahay markii ku guurisay fadlan subscribe tan ugu qabashirta ku qabo wixii fikradana comment ga nagula soo wadaag habeenadan baa cilad farsamo darteed baan hawada uga maqnayn soo dhawaad saaxiib yaal kan iyo labaad baan idin salaamaya